maalmahan waxaan ku xusuusinayaa qorshe iyo barnaamij aad kaga faa'iidaysan karto. waa qodobka koobaad. 10 maalmood ee bishan u horeeya dilxija marnaba ha ilaabin hana mooganaan labada ragcadood ee la tukado wakhtiga barqada. haddaad ka badisana fa huwa alafdal. ha ilaabin laba ragcadood oo aad tukato fii waqti saxar marka uu waagu soo dhow yahay. ha ilaabin rawaatibta 12 ragcadood ama ka badanba oo salaadaha faralka ka horeeya qaarna ay ka dambeeyaan. 2 ragcadood salaada subax ka horeeya, 4 salaada duhur ka horeeya, 2 ka dambeeya, 2 salaada maghrib ka dambeeya iyo 2 salaada cishaa ka dambeeya. ku dadaal inaad soonto 9 maalmood ee bishan u horeeya. si gaarana u beegso maalinta carafa soomkeeda. yaanu ku dhaafin siyaamu yowmi carafa faina fadlahu wallahi cadiim waman faatahu fahuwa fii khasaara. maalinkaa soomkiisa fadliga laga hela aad buu weyn yahay, qofka u dhaafana waa qof aad u khasaaray. akthir yaa cabdallahi min dikri illaah. ilaahay baa si gaara ku amray maalmahan inaad xusto. ilaahay xusuusnaantiisa iyo xusitaankiisa iyo weynayntiisa iyo ammaanistiisa farabadi. laa takfal can sadaqa tufrixu biha muxtaaja. 10 maalmood ba inaad sadaqad la baxdo ku dadaal, aad kaga farxiso qof baahan. fainahaa tudfiu gadaba rabbi subxaanahu wa tacaala. ilaahay cadhadiisay kaa baktiinaysaa, sida uu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. raadka ka dhasho oo naartaa inay baktiiso. afdir saa'iman fii yowmi carafa aw fii gayrihi min hadihi alayaam. waynu aragnay dadku siday ugu dadaalaan inay cid afursiiyaan bisha ramadaan, laakiin maalmahan dadka sooman afursiintooda dadka badankoodu waa moogan yihiin. ka faa'iidayso fursadda ah. camalka wanaagsana dadku ay moogan yihiin fadli dheeraada buu yeelanaya. ugu yaraan hal qof inaad afursiiso oo soomay maalmahan ku dadaal. ixris cala alkalaam alladii tarjuu bihi hawaab allah waskut can gayrih. ku dadaal hadalkaad is leedahay ilaahay baad agtiisa wax kaga heli doontaa oo darajo ku yeelan doontaa oo sabab uu noqon doonaa ilaahay raalli inuu kaa noqdo jannada aad gasho. ka kalena iskaga aamus. faqad qaala lanaa rabbuna subxaanah laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. hadalka ay dadu ku wada hadlayaan shirarkooda iyo faqoodu khayr ma leh 3 arrimood haddaan lagu hayn. haddaan sadaqad la ysku farahayn, haddaan dad lagu heshiisiinahayn, haddaan wanaag la ysku farahayn oo la ysugu sheegahayn. dadka ka agdhow laga bilaabo ehelkaaga iyo awlaadaada iyo asxaabtaada ku baraaruji fadliga maalmahani ay leeyihiin. ama fariin u dir, ama telefoon u dir, ama afkaba uga sheeg. walaka fii dalika bishaaratun cadiima bashara biha muxamadu rasuulu llah. arrinta noocaasa bishaaro weyn baad ku heli doontaa oo muxamed oo rasuulka ilaahay ay kuugu bushaareeyey, xayثu qaal calayhi الsalaatu wasalaam addaalu cala alkhayri ka faacilih. qofka khayrka dadka tusee u tilmaamaa xagga ajarka wuxuu la mid yahay kii sameeyey. mid kastoo maalmahan aad ku baraarujiso oo camal wanaagsan sameeya, fadliga uu ka helay mid la-eg baad adiguna ka helaysaa, iyadoo waxba adigana aan lagaa nuqsaamin. weliba arrinka noocaasi wuxuu sii adkaanayaa cibaad allah marka uu xaalku yahay siduu maanta yahay, oo dadka badankoodu maalmahan ay yihiin gaafiluuna canha aw mucriduuna can اlijtihaadi cala طaacaati fiiha. dadka badankoodu maalmahan ay moogan yihiin ama iyagoo maqlay
ay yihiin kuwa ka sii jeeda oon u soo jeedin inay ku dadaalaan daacaadka iyo waxaa ilaahay subxaana wa tacaala u dhoweynaye ayuha alcabdu lmuslim maalmaha waxaad ku dadaashaa akhrinta qur'aanka fahuwa afdalu maa yudkaru bihi rabu subxaanahu wa tacaala wax ilaahay lagu xuso waxaa u fadli badan in ilahay hadalkiisa la akhriyo ku dadaal maalin walba inaad akhrido 3 jus ugu yaraan si aad 10 maalmood qur-aanka u khatinto 3 jus haddaanad hal waqti wada akhrin karin waad qaybin kartaa bacda salaati alfajri hal jus akhri bacda salaati bayna almaqrib waalcishaa maqrib iyo cishaa inta udhaxaysana jus kala akhri bacda salaati duhri aw alcishaana jus kala akhri ma ashalahaa wama afdalahaa waa arrin aada u sahlan isla markaa fadligeeduna aada iyo aada u weyn yahay wakhtiyada qaarkood si gaara uga faa'iidayso salaada subax dabadeed iyo salaada subax horteed iyo maqrib iyo cishaa inta udhaxaysa oo kaga faa'iidaysa khayrkii waxa ilaahay kuu dhoweynaya guud ahaan ku dadaal istikfaarta farabadii u samafalka waalidka xidhiidhinta qaraabadaada badinta salaanta dadka baahan quudintooda dadka ishaysta heshiisiintooda wanaag farista iyo xumaan reebista carabkaaga ilaali jaarka u samafal martida si fiican u sooriyee waxa dadka dhibaya waddada ka leexi anfiq calaa zawjika wa ciyaalik cidda ilaahay arrinkooda iyo taladooda ku dhiibay maalmahan ka farxi oo masruuf ku filan sii agoon wax sii walaal ilaahay daraaddii aad u walaalowdeen booqo kuwa xanuunada u jiifa iyagana booqo ku dadaal salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam fa innahu min afdali alcibaadaat nebiga inaad ku sallido qof muumina ha dhibin walaalahaaga u ducee iyagoo kaa maqan malag baa ku odhan doona walaka midlu dalik taasoo kalead adiguna ku heli doontaa ammaanada ilaali ballankana ka soo bax indhahaaga xaaraanta ka laab waysada dhammaystir masaajidka xaggiisa u lugee tallaabana ajar baa lagugu qori midna dembi baa lagaaga dhaafi doonaa aadaanka iyo iqaamada inta udhaxaysa ducayso yowma aljumuca suurat lkahf akhri ajar weyn baad yowma alqiyaama ku heli doontaa salaat lciid ku dadaal احرص على أداء صلاة العيد في المصلى كددال ذكرك إلهي صلاة الدبدود وددك مساجد كمركبة كعرراها كمن نقوني كفر حددك مسلمين تقارهن كوة تاك تضرد إيا كوة باهن لابت هذا حاد وكحد حمان إيا علاد إيا قلبي حما وحي أدقوها يسقف مسلمة وان إلهي دراد دي أهين كل شيء ديفت نفطه يا دويو ehelkaaga wanaaga bar kuna baraaruji fursad kasta oo khayr oo ku soo marta ka faa'iideyso bal istanic anta furas alkhayr ku dadaal adigu fursadaha khayrka inaad abuurto inaad samaysato ku dadaal oo fursadaha lagu sheegayo kuwa aan ahayn adigu waqtigaaga inaad ka soo saarto oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaato nas'alu allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lidhalik وييسر لنا سبيله ويغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات